محاضرة waxaynu oran karnaa ama kelmadan oo ku jahaysan qofka muslimka ah habka uu u soconayo adduunyadan noloshiisuna ay deganaansho ku heli karto warwarka iyo walaaca iyo walbahaarka iyo u qaadan waaga waxa la yiraahdaa uu kaga yaraan karo marka qofka dhibaatooyinka haday dhibaatooyin haystaan iyo haduu wax tabayo iyo diiqadu gali lahaa iyo duruufaha sidoo xallinayo ee aan ugu dawaqeen waa nasaaix iyo talooyin culimadu ay mufakkiriintii ka qoreen oo aynu soo urursanayno inta waqti waynu ka gaarno insha Allah aata koobaad waxa weeye fakkir washkur marka hore waa inaad fikirtaa ilaahayna u mahadnaqdaa subxaanahu wa ta'ala waxaad ka fikiraysaa wuxuu ilaahay ku siiyay faraha badan halkaad meel kale afka u taagi lahayd oo waxyaabaha dadka nolosha ka xumeeya waxa kamid ah iyagoo aad u sii eegaya wax ilaahay cid kale uu siiyay ilaahayna wuxuu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha nicmooyinka ilaahay haddaad tirisaan ma koobi karaysaan marka maxaa lagu siiyay caafimaad iyo cunno iyo dhar iyo dhooni iyo biyo iyo hawo hada waxa aad hayso horta adigu ee dad badan aanu haynin taa ka fikir ilaahay waxa uu asbaqa calaykum ni'ama zaahiratan wa baatina ilaahay nicmooyinkiisu aad idin ku badiyay nicmo muuqataana way jirtaa mid qarsoonina way jirtaa oo adoomuhu taa qarsoon waxay gartaan markay waayaan nicmooyin waxa jira marka hore aynaan aad ba u dareemayn laakiin marka uu adoonka dhaafaan ee dhakhtarada uu ka waayo lacagtiisana uu ku waayo ayuu aad uga fikiraa u yiraahdaa wartanina ma baan dareensanayn baa iyaduna nicmooyinkay ku jirtaa ilaahay baa wuxuu fa bi ay aalaa'i rabbikuma tukadibaan jiniya insiyo nicmooyinka ilaahay uu idin siiyay faraha badan teeba beeninaysa marka qofka humuumta iyo diiqada uu dareemayo waxyaabaha ka fududeynaya waxa kamid ah shayga loo yaqaano inuu ilaahay u mahadnaqo waxa ilaahay uu siiyayna uu aad uga fikiro waxa labaad oo nasaa'ixa kamid ah ma madaafata wixii tagay inaanu qalbigaaga aad ugu soo noqnoqonin oo aanu ku dhibin oonad habeenkii ka seexan waayay waayo ilaahay waxa uu inoo siiyay waxa la yiraahdaa ilowgaasi waa dawo weyn aynu la yaabsanahay ee aynu leenahay ilowgii baa igu batay hadda danteennaba weey haddii wax walba aad xusuusanto waxaad ilaawaysaaba aanu jirin oo daakiradaada iyo xusuustaada waxa la wixii muruga ahaaba aanay ka tagaynin mabaad seexan karteenba geeridii baad ilaawaysaa balaayadii kugu dhacdaad ilaawaysaa wixii ku dhaafay baad ilaawaysaa dan iyo maslaxad ba inoo tahay waxa la yiraahdaa tadakkuru al-maadi wa tahazzunu qatlu lil-irada qofkii oo xusuusta wixii dhaafay oo ciil iyo carab uu go'il kama kala noqda waxa weeye qatlu lil-irada qofka go'aankiisii iyo horumarku sameyn lahaa bay ka dilaysaa idan cinda al-uqalaa yudwa wala turwa wala iska laaba safxada oo lagu macalceliyo lama qofka hortiisa u neetaala maaha wixii dhibaatooyinaha iyo wixii dhaafay ilaahay baa wuxuu tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wala kum ma kasabtu taasi waa ummad tagtay sideeda ku dhaafo idinku shaqaysta way yawmuka waxa kamida nasaa'ixa maalintaadu waa maalintaadii maalinka taagan tahay maalinaad iska leedahay way oo aad ku xisaabtami karto idan marka aad gabalku uu ku dhaco subaxdii ha sugin marka waagu ku bariyana galabtii ha sugin waqtiga aad taagan tahay ku xisaabtan cimrigaagana ka soo qaad maalin kaliya inuu yahay maalinka saacadihiisa sanado qaybi daqiiqadihiisana ayaamo idan marka ka faa'iideyso iyo ku dhaafi dadkana had iyo jeer waxa ay ku kala horumaraan waqtiga jooga kolba sida ay uga faa'iideystaan Abdullah ibn Mas'ud Allah ka raali noqdo waxa uu lahaa waxa aan ugu muruga badnahay maalin intuu isoo galay iga baxay oo cimrigaygina naaqusay camalkaygina aanu kordhin cimrigaygu wuu naaqusoo maalinkaasi waa dhaafay laakiin camal maalinta ii kordhay ma jiro ila cilmiga laftiisi waa camal waxa aan ugu muruga badnahay waa kaas
إلهي باوحل وخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وحا أنكو سيي قاضو كوا مهدنا قنا نقو نصائح وحا كمدا أترك المستقبل حتى يأتي مستقبل كصوص عضا إسكدا إلى أنتو إيمان أيو dad fara badan baa iyagana waxa dhibaato ku haya mustaqbalka iyo warwarkiisa gaajay ka warwarayaan faqri bay ka warwarayaan balaayay iska warwarayaan marka warwarka faraha badan ee mustaqbalka qofka haystaana waxyaabaha nolosha ka xumeeya way ataa amrullahi fala tasta'jiluhu arrimaha mustaqbalka waxba haddajisinaba ayaa rabbi subhanahu wa ta'ala oo iyada oo qofkii ahdaafta iyo dhacdooyinka وka horu maro waxay noqotaa ijhaad umurtiisu way dhicisaa qofka oo wuxuu ka dhignaanayaa qof midhihii goosanaya intaanay gaarin waqtigii bisaylka marka waxaad ka warwartaa ayuu jirin shaydaankuna waxa mustaqbalka la xidhiidha ee warwarka uu kaaga hayo ee aad ka seexan laadahay iska dhig ilaahay baa wuxuu yidhi ash-shaytaanu yacidukumul faqr wa ya'murukum bil fahshaa والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا شيطانك وحل كالجيت كشيطانك الله يرعاه مفسد كاه مجا بحي وحا إذين يبوه يا فقري يفعل حمى مستقبل كقصابسا إلهينا الدم بالله في فضل الإراد بإذين يبوه يا نصائح وحا كمذا كيف تواجه النقد الآثم هذه يتشير قفك بني آدم كاه dad fara badan baa ku soo jahaysan waliba qofka marka ilaahay waxyaabaha tafdiilaadka dheeraadka uu wax ka siiyo indhuhu way soo eegayaan afkuna wuu hadal hayaa gacmahana waa lagu fiiqayaa haddii ilaahay aqoon siiyo hadduu adduun siiyo hadduu awood siiyo wixii ilaahay uu qofka siiyay dheeraadaba waa lagu hadal hayaa idan markaa taasina yay noqon wax niyada ka wasakheeya waxaad ogsoon tahay nabi maxamed ba calayhi salaatu wasalaam إلا عاي وقار وقت هرا جوجيو ووقت جيسيها يقار هذا جوجا لبضوا إني عاين بعدكته نشاعر بقى وحول حسد الفتى إذا لم ينالوا سعيه فالناس أعداء له وخصومه قف كضد بدن بأمريكا أي تدال كيس جاري وين عدو النقضي لنا مرمية مركا هكف فكر أن تكون مقبولا لدى الجميع سالما من العيوب عند العالم هذا مستحيل إن أدتك أكتر نقطة من لقى قادنا يو عدي أنا كهوري منينو كعما فران لقو سور دوين يتاسمايا رسول كي رسوشي لهاي باني كدعين سيدا درادد أدي قاركو عايانا ما وحكاش يغان إن بدنوكو أمانيسا إن بدنوكو تاغيرسان إن بدنو وحواناكسان أدو ودا سور دوين ياتيره marka taasina inay nolosha dhadhankeeda ka lumisamaha نصائح waxa kamid ah la tantadir shukran min ahad qofna baha ka sugin inuu ku mahadnaqo oo dadka ha odhanin wax wanaagsan baan wadaa oo cilmi leh oo infaaq leh oo waxtar leh oo dan guud leh maxay wax iga sheegayaan ama ay igu mahadnaqo waayeen oo marka xafladaha laga hadlayo iyo marka warbixinaha la qorayo iyo marka taxliilka la sameeyo hadii lagu soo qaadi waayo ka fikirin ilaahay agtiisa uu lagu soo qaadi doono oo xuska ilaahay u bad ka sugaysaa la tantadir shukran min ahad hadaa doonayso noloshu inay macna ku samayso dadka mahadnaqooda iyo amaantooda waxbaha xiisaynin ilaahay baad abaalmarin ka sugaysaa subhanahu wa ta'ala haday macruufkaaga diidaan iyaga oo u diidaya li'annaka ahsanta ilayhi hatta inaad u samafashay هذا أوصم فلي أديك فسوا قادي ويان هكسوا من إلهي بقول وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله وحى كل الدجال من رسولك يا مؤمنين إن إلهي يا رسولك وقني كدجي إلهي بقى قني كدجي رسولك بقى قني كدجي وحسيه هذا نعيب شيء يا علاد بكلهري مادين ما بي هاتنا قمبا قرآنك وحى إلهي وتلمامي قفك قالك مرك ورا إلهي ببريا marka uu dhibaatada rabbi ka dul qaadana ilaahayba uma mahadnaqo marka an lam yad'una ila durrin massa uu iska sii soconaya waxa aad moodaa kii aan bariinba marka adoomo badan baa markay baahnaayeen ilaahay bariyay subhanahu wa ta'ala markaas ilaahayna dhibkii ka dul qaaday kadib ilaahay bay mahadnaqi waayeen aduguna waxba mahadnaqa ka sugin kuwooda aad macruufka u samayso dib badan oo dareemi lahayd marka waad ka nasan doontaa
nin baa gabyayoo waxa uu mahad iyo abaal ka waayey inaanu u samafali jiray oo uu koriyey kiibuu ka cawdayo waxau idhi ucallimuhu rimaayata kulla yawmin falama ishtadda saaciduhu ramaanii maalin walba waxaan baraa shiishka waxaan baraa horumarkiiyo awoodda markuu muruqiisii adkaaday anigaabuu igu dhug bartay buui aniga laftigaygii ayuu shiishkii iga bilaabay intuu wax igu tara iska daayo marka ummad badan oo aad ixsaan u samaysay ayaanad abaal ka helayn qaar kale ayaa waxa wanaagga ah laga yaabaa inay kugu xaasidaan cidnaba mahadnaqa ka suginaan ilaahay ahayn subxaanahu wa tacaala waxyaabaha kuu dhib yarayn kara sacaadada ay ku siin kara weeye waxaa ka mid a nasaa'ixaas alixsaanu ila alkhayr inshiraaxun lisuduur waa kollay nasaaixna weyn hab qaaciidana way u socdaan alixsaanu ila alkhayr inshiraaxun lisuduur inaad dadka u samafasho laba midun bay noqonaysa inaad dadka adigu u ixsaan samayso ood u samafasho iyo inaad dadka adigu ka godob qaadato marka ta fiican ee had iyo jeer nolosha sacaadada iyo wanaagga u keentaa waxa weeye inaad dadka u samafasho arrin iyo adduun iyo aqoon iyo awood wixii aad ummadda dheer tahay isku day inaad noqoto kas wax siinaya ee iyaga aan waxba ka sugaynin marka waxaa la yidhaha aljamiilu kasmi waalmacruufu ka rasmi waalkhayru ka طacmi marka shayga jamiilka la yidhaahdaa magiciisaasunbuu la mid yahay shayga jamiilkaahi jamaal buu keenaa iyo qurux macruufkuna curfi iyo wanaagunbuu keenaa wixii wanaageed samaynaysa waxaa la yidhaha awalu lmustafiidiin iscaadu lmutafadiliin dadka had iyo jeer tafadulka iyo dheeraadka leh ee dadka isku daya inay waxu taraan waxtarka u horeeya iyaga ayaa leh waxtarka u horeeya iyagaa yeelanaya ilaahayna saasuu qur'aanka ku ammaano waxau uhi wamaa liaxadin cindahu min nicmatin tujza ila ibtiqaa'a wajhi rabbihi alaclaa abuubakar bay ku soo degtay baa laydha aayaddu cid alla cid uu wax kaga doonayay ma jirin cid abaal ku lahaydna ma jirin wamaa liaxadin cindahu min nicmatin tujza marka abaalka ilaahay unbuu ka sugayaa idan ku xisaabtan inaad dadka u samafasho taasaana adiga nafis ku ah mar haddaanay gacan kaa sugayn aanaad adigu iyagu aanay wax kaa sugayne iyaga un ay wax kaaga maqan yihiin nasaa'ixa waxaa ka midoo ka sideedaada udrud alfaraaqa bilcamal udrud alfaraaq bilcamal haddaad doonaysa sacaadada nolosha iyo maskaxda iyo qalbigu inay kuu nastaan waxa la yidhaahda faraaqa oo ah qofku jaaniska uu haysto inuu ku buuxiyo shayga camalka la yidhaahdo walow ciyaar jidhkiisa dhisaysa iyo tababaraan khayrka ka mashquulinna ha noqdabe oo waxaa la yidhaahdaa alfaariquuna fi lxayaa hum ahlu lirjaafi waashaa'icaat dadka had iyo jeer jaanis kale ama faraaqa hayeen shaqaysanaynin waa kuwa ugu muran badan ee ugu munaafaqad badan ee ugu isku dir badan sidaa daraaddeed baa munaafiqiinta ilaahay uu ka warramo wuxuu yidhi raduu bian yakuunuu maca alkhawaalif waxay raalli ka noqdeen munaafiqiintu intay jihaadkii ka hadheen oo howlihii caamka ah ee ummadda ay ka hadheen inay maca alkhawaalif dumarka ee guryahooda joogay ku hadheen marka howloo dhan kolkii ay ka hadheen hadal bay isu taageen foolxun inay tiriyaan oo aad iyo aad ay wax uga sheegaan dadkii mu'miniinta ah rasuulkuu horkacayay sala allahu calayhi wasalam waana dhab weeyeoo sidaa culimmadu ay sheegeen in fara badan dadkeenna waxa ama qaylaadda ku kalifaya iyo balwadda waxa boolatiigga iyo fadhi kudirirka ku kalifaya dee waa faraaqa qofku hadduu 10 saacadood shaqayn lahaa 2 saacadoodna midna uu sii socon lahaa midna uu soo socon lahaa 4 saacadoodna uu cibaadaysan lahaa waxa laga yaabaa cidba kii la hadlaba wuxuu odhan lahaa fadlan lacagii weydii wakhti kuuma hayee adigoo iga raallaya wakhti oon kuu hayaa ma jirayo wax hadalan toona aan karayaae waan soo daalo ama waxbaan karsanayaa ama dharkan maydhanayaa ama in yar baan yaro nasanayaae hore ka sii dhaqaaji buu odhan laha lacag waan ku siin karaa laakiin wakhti kuma siin karo waa sida dadka adduunyada u wardaa ummadaha kale maanta ay u socdaan qofku waxa laga yaabaa in ay uga sahlan tahay inuu lacag ku siiyo inuu wakhti ku siiyo salafuna saalixna saasay ahaayeen oo wakhtigooda diinta uga faa'iidayn jiray axadu aclaami salaf baa nin jidka isu taagayoo kolkaasaa wuxuu uhi ii joogaan su'aalku weydiiye lamuu ballansanayn marka horay buu ka dhaafay maalintii labaadna wuu dhaafay maalintii saddexaad buu ku dhegayoo
wuxuu maalin walba waad dhaafaysaa bal maanta isu kaytaag wuxuu horta qorraxda jooji qorraxda marka aad joojiso ayaan aniguna joogsan doonaa inta qorraxdu socdo anna waan socdaa kol hadda qorraxda la tartamaysa isku qolo ma ihine bal ka sii dhaqaaji buu marka udrudil faraaqa bil amal hadaa doonaysa inaad nasato oo aad mafsuuq noqoto taa ku dadaal sidaa daraadeed baa boqolkiiba 50 dhakhaatiirta caalamka cilmu nafsiga ka hadlaa waxay leeyihiin waxyaabaha u kasbi kara qofka sacaadada iyo inuu raaxaysto maskaxdiisu way nasato aan u warwarin waxa kamid ah in waqtigiisu buuxo oo shaqeynayo waliba qofka maskaxda ka shaqeeya waxa ka sii mafsuud iyo farxad badan qofka muruqa ka shaqeeya bayda sida midal dadka falaaxiinta beeralayda dadka dhismayaasha ku jira dadka xamaaliinta ah يعيشون كالعصافير في سعادة وراحة سيدا شبراهاسي أيو قيراريان كاينت الدحرينة أي استغفر حسين بحمالين تاسي يدد كارديسي هاسيس كترينيا وعلى غيابا كيد ديرينا يتاجر كعمومي قاها هانا العكت وهيينا إنو مسكح رئيس يور ونفتح أيو وحكم إذا قضب كالسقالة من أسباب السعادة لا تكن إمعه هنقولن قف دبا صعدا أما سيدا وقت كان دنبا إن هنا لقى دحله أما لك عيد كلا حنبارسن هنقولن أثر باكو سو أروري ابن مسعود لقى وريه علماء قاركودا ضعيف كو هاين ضعيف كو شيغان إذا مركا waxa muhiima inaanad naftaada ilaawin la tansa nafsaka wa shakhsiyatak wala tansahir fil aakharin inaanad dadka kala ku dhexmilmin oo shakhsiyadaada iyo naftaada aanad ilaawin waa muhiim ila hadii dadka dhaxadlaan dhaka kala lagu xambaariyo waxaad ku dhawaaqaysaa afkaar cid kale unay noqoto oo nacamla dad kale aad noqoto waa musiibo sidaa daraadeed ayaad ogsoonaanaysaa bani aadamka sidan ilaahay uu kala duway muuqaalkooda ayaa mawaahibkooda iyo maskaxdoodana rabbi uu kala duway subxaanahu wa ta'ala marka mawhibada iyo maskaxda ilaahay uu ku siiyay adigu isticmaalo aqligaaga ku fikir qad alima kullu unaasin mashrabahum wa likulli wajhatin huwa muwalliha qof waliba mashrabna waa iska leeyahay jiha uu jihaystana uu leeyahay isaga ayay tahay inuu samaha iyo xumaanta kala miisaamo daliilkana raaco qodobka tobnaad nasaa'ixa kamidi waxa weeye al-iimaanu bil qadaa'i wal qanaa'atu bi qofku si uu sacaado wanaagsan u helo culayska iyo lawdka iyo dhibka haysta uga fududaado waa inuu rumeeyaa go'aanka ilaahay iyo qorshihiisa waxa ilaahay uu qadaro waa inuu ku qancaa rumeeyaana saasuu quraanku ina baraya ilaahay baa wuxuu ma asaaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير وحكستو دباتي ماده إري دولبا إلهي باسي قدريو كتاب خصقنا انتي أنا إفكا وبصوا بحنبا وحقران باي مصيبة داسهاي إذن مركا وحكستو دعا هاو قادم واين وقادم وايان يكون نقنين عقيدة وناكسنين واسداس من يريد الله به خيرا يصيب منه من يريد الله به خيرا يصيب منه نبينا وحده عليه الصلاة والسلام قفك إلهي وخير للدونه وحن بسوا قارسيا مركز دباتة سوا قارس قفك وين أنا أوران واي سيدا هذه يترددك الدين لأنت إيا كفر وهيسته محاي كل عضي وحكسته سببه كياني لهيد وحن إنان كقاشان توان سمي محاي كل عيان سادراديد برسولك ينودي صلى الله عليه وسلم مركز وحدعان إنه قفك هذا لو أني فعلت كذا وكذا هدان وحاسمين هدوها بالهلكا وددا اسكدين لها ميا غاريغا سيلا قلب بلا امس شيربان هلكا همري هدو هبل كهري لها بلادا سميه دحي لها لو اريغا هدي تفتح عمل الشيطان رسولك waxa uu albaabka shaytaanka ayay kugu furaysa marka xalquna waxa weeye qadar Allah wama shaa fa'al ilaahay baa qadaray wuxuu ilaahay qadarayna ma baaqanayo adigoo sababaha qaadanaya aad ku nabad galayso oo aan lagu lahayn naftaada dayac haddana qadarka ka soo dulboodin waana mid aynu dheernahay dadka diin la'aanta ku sugan oo de lixdii arkaanu iimaanka maxaa kamida al-iimaanu bil qadar khayrihi wa sharrihi dib iyo dheef wixii ku soo gaadhaba waa inaad ogsoonataa wax qoran inuu yahay